madasha mustaqbalka Soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo riixday fuusta aad u weyn qorshe uu doonayay inuu ku hagardaameeyana waa ay ku fahmeen shirkii uu ku dhawaaqay ee uu daneynayay in ay diidaan ay aqbaleen muqdisho ayayna imaan doonaan xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa si degdeg ah dowlad goboleedyada isaga hoos yimaada ee u dhagaha nugul shir online la qabsaday si uu u hubiyo in garabkiisa ay yihiin waxay sidoo kale ka wada hadleen doorashooyinka ay madashaasi diidan yahay in lasii qaban doono si madasha mucaaradka oo xanaaqsan arrintaasna aad u diidan ay u yimaadaan sidoo kale Soomaaliya waxaa kusoo qulqulaya hub aad u fara badan oo ay siinayso dowladda Turkiga iyo sidoo kale dowlado kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena maanta ku falaqeynaynaa fadlan kusoo dhawow muuqaalkan sheergare haddii aad nagu cusub tahay adigu nagu soo biir saaxiibadaana u gudbi muuqaalkan aynu ku bilaabano laba shirar oo iska soo horjeeda ayaa maanta midna ka dhacay Nairobi mid kalena ka dhacay magaalada Muqdisho qaab online-na dowlad goboleedyada dalka ay uga qayb galeen shirarkan ayaa waxay yihiin kuwo la isugu diyaar garoobayo waxaana fashilmay fuusto uu riixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu doonayay inuu uga xanaajiyo mucaaradka Soomaaliya oo magaalada Kismaayo ku kulmay ayaa waxa ay sheegeen in xasan sheekh maxamuud nidaamkiisa dowladda qaabka u maamulaya aysan ahayn wada sax ah sidaas daraadeed 20ka bisha January degdeg uu shir ka hor ugu dhawaaqo kaas oo looga arinsanayo doorashooyinka dalka dastuurka uu bedelay in la joojiyo iyo qaabka doorashada uu doonayo in la joojiyo lagana wada hadlo gabi ahaanteedba haddii taas aysan samaynin xasan sheekh maxamuudna iyagu ay tashan doonaan dowlad kalena ay dhisayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka jawaabaya isla markaana raba in uu duro ama uu bahdilo mucaaradka Soomaaliya ayaa hal maalin marka ay ka dhimaneed ballantii waxa uu fariin u dhiibay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu golaha xukuumadda ay ku cilaaminayaan shir wada tashi oo dowlad goboleedyada kuwa xitaa aan kamid ahayn oo aan waafaqsanayn dowladda Soomaaliya aan ku siyaasad ahayn ay ka qayb galayaan arrintaasi ayaa la doonayay in mucaaradka Soomaaliya looga xanaajiyo oo Dani iyo Axmed Madoobe ugu horeeyaan si ay u arkaan in la bahdilayo qaab fiican aan loo dhaqmaynin nidaamkii ama mansabkooda wax ka hooseeya lagu dhaqmayo sidaas daraadeedna ay xanaaqaan xasan sheekh maxamuudna u helo fursad dheer oo siinaysa inuu dalka ku sii maamulo isqabqabsigaasi aawadiisa laakiin mucaaradka Soomaaliya oo aad u shiraya bariye la soo dhaafay ayaa arrintaas istusayay waxa ayna ku ballameen in ay aqbalaan shirkaasi doodaha ayagu ay leeyihiin saxda ahna oo ugu horeeya dastuurka la bedelayo doorashooyinka la qabanayo ay ku diidaan shirkaasi wada fadhiga la isugu imaanayo isla markaana aysan xanaaqin kulanka oo Nairobi ka dhacay ayaa maanta golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ah mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya Muqdisho u jooga kasoo horjeeda iyo labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland oo ayagu ka soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay isla qaateen inay shirkaasi imaanayaan 1 bisha February dhacaya diyaarna ay u yihiin doodaha ay qabaan halkaas ay ku jeedinayaan laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u sii direen fariin ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay joojiso dastuurka ay bedelayso dibna ay ugu soo laabato dastuurka heshiiska lagu ahaa 2012 mar labaad in dowladdu ay joojiso doorashada golaha deegaanka tii Muqdisho ay ku qabatana ay ka dhigto mid badalan ah midda maamul goboleedyada qaarkood iyaga hoos yimaada ay u qorsheynaysana ay joojiso isla markaana kulankaasi looga wada hadli doono amniga dalka iyo wadajirka iyo sidoo kale abaaraha oo dalka abaara aad u baahsan ayaa ka jira sidaasi ay isla soo qaateen laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka jawaabaya isla maanta waxa uu kulan online ah maadaama aan la isku imaan karin degdegaasna ay suurtageli karin la qaatay madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle Galmudug Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir SSC qaatum inuu ku jirto ma xaqiijin karo laakiin intaas ayuu kulan la qaatay wuxuuna kala hadlayay xaaladda wadajirka dalka qodobka ugu muhiimsan waxa ay ahayd shirka laga soo qayb galayo in xasan sheekh maxamuud iyo garbahan oo ku tashanaya isaga ay ahaadaan mid wada jir ah oo ay ku wajahayaan madashaasi mustaqbalka ee mucaaradka isku tagay ee aad dowlad goboleedyada iyo mucaaradka saxda ah ee aan dowladnimada ku jirinin si ay garabkiisa u ahaadaan waxaa la falanqeeyay qodobada ay ku doodi karaan isla markaana wuxuu mar kale sii riixay fuusto kale oo uga xanaajinayo mucaaradka Soomaaliya si aysan weji fiican halkaas ugu imaan iyagoo xanaaqsan ay u yimaadaan ayna u suurta gashay xasan sheekh maxamuud in kulankaasi aysan natiijo ka dhalanin fuustada uu riixay ayaa waxay tahay in mucaaradka loo sheegay ama ay ka wada hadleen maamul goboleedyada dalka iyo xasan sheekh maxamuud
in golaha deegaanka iyo doorashada xildhibaanada Soomaaliya la bilaabo oo laga bilaabo 3 dowlad goboleed. Qorshahaasna ay ka wada hadleen isla markaana ay kasii wada shaqeyn doonaan. Waa arrinka ugu weyn ee lagu kala tegi doono oo la isku qabsan doono. Nimankan dastuurka dalka ayay diidanayeen, waxay mar kalena in doorasho la qabto oo golo deegaan midda maamul goboleedyada iyo midka golaha shacabka ah. Arrintaasi waa arrin aad u adag oo aysan aqbali doonin mucaaradka Soomaaliya. Madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waa qorshaha ugu weyn ee uu leeyahay in la diido si uu u helo waqti iyo fursad uu dalka kusii maamulo waqtigaasi kala guurka. Inkastoo caqabado ay imaan karaan oo dowlad goboleedyadaas iyo mucaaradkaba ay qaban karaan dowlad kale inay isku dayaan inay dhisaan oo xasan sheekh maxamuud laga garab dhiso, laakiin ay tahay arrin aad u adag. Si kastaba waa fawdo dalka la gelin karo, taas oo ah mid aan la jeclaysan karin oo ummadda dowladda jecel aysan jeclaysan karin, laakiin siyaasiyiinta kursiga isku riixaya iyaga oo danahooda fiirinaya arrintaasi khatar lagu jiro. dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu wadaa qorshe kale oo mucaaradka Soomaaliya doonayo in uu ku sii riixo ama uu ku sii fogeeyo, taasoo ah in dastuurka qodobada dhiman waqtigani ilaa iyo bisha Soonqaad intaysan la gelinin ee uusan kala teginin golaha shacabka laga shaqeeyo in la dhammaystiro gebi ahaantiisba. Waa arrin kale oo caqabadeedu aad u weyn tahay. Arrimaha ugu waaweyn ee la isku haysto doorashada Soomaaliyana waxaa ka mid ah dastuurka oo la bedelay oo xasan sheekh maxamuud oo bedelay oo mucaaradka iyo dowlad goboleed aad u diidan yihiin. Waa arrin aad u weyn arrintani, sababtoo ah waa wixii lagu shaqeynayay. Haddii la bedelana xasan sheekh maxamuud waxa uu doonayaa in kan uu bedelo uu ku shaqeeyo. Mucaaradka iyo dowlad goboleedyada horena waxay doonayaan kii hore in lagu shaqeeyo. Way adag tahay arrintani marka, wax fudud ma ahan, laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu rabaa inuu dhammaystiro gebi ahaantiisaba isagoo dhagaha iska fureynaya. Mucaaradkuna waa ay kula dhegan yihiin. Arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadda halkaas ayaan uga gudbaynaa, laakiin aan kugu daro dalka Soomaaliya waxaa kusoo qulqulaya hub aad u fara badan. Hubkaasi oo loo keenayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. 4tii beri ee lasoo dhaafay waxaa la xaqiijiyay in diyaarad ay leedahay Turkiga oo diyaarad ciidan ah oo ah mid xamuul ay magaalada Muqdisho gaar ahaan airportka Aadan Cadde ay 4 maalinba kasoo degtay, iyadoo sida hub aad u fara badan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya la siinayay. Hubkani ma cadda maxerada tababarka ee Turkiga ayuu ku degi doonaa oo Turkiga ayaa ciidamada ay tababarayaan ku tababari doona kabacdina ku qalabeynaya, mise ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si toos ah gacanta loogu gelin doonaa oo waa hub dowladdu ay ku taageerayso Soomaaliya oo aan nidaamka Turkisom uusan maamulaynin. Arrintaas ilaa hadda ma cadda, laakiin waxa la xaqiijin kara ayaa waxay tahay in hubkaasi uu kasoo degay magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo jira wadamo kale oo Masar ay ka mid tahay, Serbia ay ka mid tahay, in Soomaaliya hub fara badan waqtiyadii u dambeysay uga imaanayo. Hubkani oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dooneysay inay ku qalabeyso ciidamadeeda, maadaama waqtigan dunida ay ku jirto waqti kala guur ah oo dowlad kasta ay tabarteeda ku tashanayso. Soomaaliya waxay aad u danaynaysaa in ay iyadu isku filaato, hub ku filan iyo ciidan ku filan ay hesho. Wixii warar ay arrintan kasoo kordha halkan ayaa kala socon doontaan. Fadlan muuqaalka share garee, saaxiibadana u gudbi, naguna soo biir.